قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، وفي رواية وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة. قفك قرآنك كريم كأب أخرية إساقو قرآنك أخرسكيس يحفظكيسبا كفي عن وحا ولقليا جنة ملائكته الله سبحانه وتعالى قيمها سي أيوسي قفك قرآنك برته. haddaba fursadan ka faa'iidaysta oo ku soo dhawaada madrasad sawt alxaq litaxfiid alqur'aan alkariim. taleefon nambarka oo whatsapp ahna waxa ku arkaysaan shaashada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دما ولا لها قيمة أي قدرين تمضن إيكو حدن channel كينا فاطمة منا channel خير يا برواقة بدن أيان ذي رجينيا ميل بدا فادوني ذا كل شوكتان يحلو والبا ويدين سوغارو أو داوتان فيديوغان. قصة تاني سيدا لما قصة كينا وقصة عجائبة. قصة داني وحا أي كدعضي سعودي عربية waa sanadkii baxay hadda sanadkii hore weeyaan. nin sacuudiya ayaa waxa caado u ahayd oo dhaqan u ahayd in uu u baxo waxa la yiraahdo albar amba magaalada duleedka amba yani meelaha baadiyaha duleedka magaalada ma aha laakiin waa meel haday rabto magaalooyinka ka fog oo markaa meel iska saxara ah oo iska cidla ah ayay dadka sacuudiyiinta inta iska tagaan ayay mararka qaar wiigag amba maalmo amba dhowr habeen ay u soo dhaxaan. rag ayaa isballansan karaa saxaab ah oo isla baxa oo sii qaata qalabka wax ku karsanayeen baabuuradooda ku baxa meel jidadka waliba ka yara durugsan oo saxarada bartankeeda ayay haday rabaan halkaasi camping holiday waxay yiraahdaan dadkan reer galbeedku ayay ku sameeyaan oo halkaasi ay taandha ku dhistaan oo ay xoogay soo deganaadaan. dabcan dadka sacuudiyiintu asalkooda hore waa dad reer baadiye ah. bi'adaasina waa bi'adii aabayaashoodii iyo awowayaashooda ay ka yimaadeen marka xiise badan bay u qabaan oo qaar badan baa iyagoo haday rabaan baadiyaba ku dhalan amba ku korin haddana xiise ayay u qabaan meesha iska nolosha stress la'aanta ayay dhowr cisho kusoo maqnaadaan inta isku ballansadaan amba dhowr caailadood oo qoysasa amba rag keligood ay u baxaanba. marka ninka qisada ay ku dhacday waxa uu sameeyey wuxuu asagaya asxaabtiisa waa isla baxay meesha baadiyaha ah ayay maaragtay waqti ku soo qaadanayeen isagii asxaabtiisu. xaaskiisiiba ku yidhi markaa waxaan rabaa inaan baadiyaha u baxo ii diyaari qalabkaygii alaabtan qaadanaya ii diyaari. waaye bay tidhi waxa ay ku tidhi markaa walaalow intaanad bixin 7 dhan cunto nagu filan adeegii guriga ma garanaysa noo soo gad. hadday tahay adeegii raashinka qalalnaa sida bariiska waxyaabahaas oo kale iyo waliba waxyaabihii kale ee loo baahnaaye adeega wuxuu doonaba ha ahaatay adeegii guriga caanaha ilmaha yar xataa loo qaso waan u baahanay waxaasoo dhan alaab badan bay marka ay u sheegtay odageedu inuu kasoo iibiyo dukaamada oo uu ku keeno guriga inta aanu safarka gelin. waaye buu yidhi ninkii supermarketkii buu tegay wuu u soo adeegay reerkiisii kadibna alaabtii ayuu baabuurka ka soo dejiyey waxa uu u dhiibay ninkii waashmaanka ahaa ee ilaalinayay cimaaradda. marka ninkii waashmaanka ahaa uu qaaday waliba waxa la yidhi waashmaanka caadiga uga shaqaynayay meesha mar walba joogi jiray muu joogin maalinta nin kalaa meesha ka shaqaynayay adigu wuu qaaday ninkii adeegii wuxuu ku yidhi gurigayga gee. ninkii adeegii wuu la kacay wuu qaaday kadibna ninkan guriga iska lihi wuu iska baxay isagoo baabuurkiisii toos uu sii socday baadiyihiisii buu baxay. wuxuu yidhi marka aan highwaygii marayo ilaa malaha saacad meelaha adigu aan sii socdo ayay xaaskaygii soo wacday waxay igu tidhi walaalow kumee waxaan ku yidhi buu yidhi dee waxaan usii socdaa meeshii baadiyihii. waxay igu tidhi oo meeday adeegii aan kuu dirsaday mee adeegii. wuxuu yidhi walaalay adeegii waa aniga kuu soo diraye miyaanad helin. waxay ku tidhi maya wax adeega maan helin. masaasaa haa. ninkii buu wacay waashmaankii wuxuu ku yidhi war miyaanad adeega reerkaygii u geyn. wuxuu yidhi guriga saasa ayaan geeyay show gurigii gurigooda kasoo horjeeday reerkan ayuu dhigay adeegii ayuu u dhiibayba adeegii intuu ku garaacay.
gabadhiina waa iska qaadatay de isagu dumarkan ma kala garanayo wada xijaaban ma garan karo markaa ninkii wuxuu mooday gurigii ku qaldamay show kadibna waayo waa nin aan si caadiya meesha uga shaqayn jirin oo guryaha aan si fiican u kala garanayn qiyaastii ninka maalintaa shaqada ku jiray waashmaannimada kadibna waxa uu ninkii gabadhiiba uu la hadlay ninkii guriga iska lahaa telefoon buu usoo diray xaaskiisii wuxuu ku yidhi walaalay alaabtii adeegeena reerka inaga soo horjeeda ayaa loo geeyey maxay hayday mise iyadaa usoo sheegtay intay soo ogaatay ninkii weydiisay sheekada haddaanan qaldahayn kadibna adigu almuhiim ninkii guriga iska lahaa markuu ogaaday in adeegii uu soo adeegay la siiyey reerka kasoo horjeeda gurigiisa jaarka laa wuxuu yidhi walaalay ilaahay baa u qadaray ilaahay baa rasiqa iyaga u waday waanay heleen wixii ilaahay u waday iyaga maxay hayday wax xaliyaal wixii aad u baahnayd adeega waxaan la hadlayaa nin aanu asxaabnahay isagaa kuu soo adeegaya waashmaanka kugu soo daraya waaye bay tidhi adeegii uu hore ugu adeegay reerkiisii ayuu ninkii u yeedhiyey wuxuu ku yidhi waxaa reerkayga usoo iibi ninkii saaxiibkiis ahaa supermarketkii buu tagay wuu soo adeegay adeegii wuxuu u geeyey ninkan maaragta dalbaday adeega xaaskiisii baa loo geeyey marka reerkii saxda ahaa hadda ayaa adeegoodii loo geeyey way heleen adeegoodii alxamdulilah halkaas sheekadaas ku dhamaatay wuxuu yidhi meeshaydii baan iska tegay baadiyahaygii muddo ayaan asxaabteydii lasoo qaatay waa iska soo noqday waxoogay kadib bishii rabadaan baa noo soo gashay bishii rabadaan markay soo gashay xaaskaygu masaajid yar oo xaafadda ku yaala oo haweenku qayb ka mida ay ku tukadaan ayay baxdaa oo salaada taraawiixda kusoo tukataa iyada iyo dumarka kale ee xaafaddu markaa gabadh bay aragtay gabadhiiba waxay ku tiri walaaley ilaahay khayr ha idin siiyo waan idin duceeyey aad iyo aad baan idinku duceeyaa ilaahay ha idin barakeeyo waxay ku tiri walaaley maxaad ahayd waxay tiri gabadha guriga kaasoo horjeeda degan ayaan ahay waxaan ka imid dalka Yaman amba aan u dhashay dalka Yaman caruur yaryar baan haystaa zawjkaygu wuu safray muddo 3 bilood ayaa war iyo wacaalaanu ka weynay aniguna waxaan guriga kula xidhnaa caruurta yaryar adeegii oo dhan baa naga dhamaaday waxa aan gaaray heer aan isiraahdo cabaayadaada xidho masaajidka hortiisa istaag dawarso amba maaragtay dadka tuugso ayaan heerkaasaan gaadhay laakiin mar walba waan iscelin jiray waan xishoon jiray laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala baan baryi jiray waxaan ku ducaysan jiray yaa allah ilaahayow waxaad nagu arsaaqdaa min xayثu laa naxtasib risiq waxaad nooga soo dirtaa meel aanan ka filanahayn ayaan ka baryi jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku ducaysan jiray kadibna adeegii aan noo soo dirteen ayaa noo yimi oo ducadeydii baa ilaahay i aqbalay meelaanan ka filanayn ayuu ilaahay arsaaq naga siiyey waxaad moodaa adeegii markii naloo keenay qofka noo soo adeegay inuu yahay qof baahida gurigayga ka taaganba og sababtoo ah xataa ilmo yar baan haystaa caanihii caruurta nuunuyada loo qasayay ayaa xataa ku jira wax walba ayaa ku jiray adeegii maaragtay bariiskii wax walba waxa ku jiray maxay ahayd nacnacyo iyo maaragtay shokolaatiyo caruurta yaryar ay leeyihiin wax walba oo reer loogu adeego ayaa meesha ku jiray bay tiri marka ilaahay subxaanahu wa tacaala min xayثu laa axtasib ayuu ilaahayga arsaaqi meelaanan ka filanahayn sidaan ku ducaysan jiray idinkana aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa aad baa u mahadsantihiin marka iyadu way fahantay reerkan kasoo horjeeda inay yihiin dadka adeega iska lahaa adeegan iyadu waxay moodaysa inay usoo direen oo iyada ay siinayaan iyadiina sidii bay ugu ducaysay reerkii waxay tiri adeegiyo weli noo yaala oo weli maaragtay adeegii noo yaalo ayuu odaygeegiina safarkii ka yimi oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sidaa nagu badbaadiyey idinkana ilaahay jazaa'igiina jannada allaha ka dhigo waa ku mahadsantihiin waanan idin duceeyaa walaashay sidaa ku ogow marka gabadhii way yaabtay subxaan allah adeeg qaldamay oo guri kale la geeyey oo gabadhii guriga kale la geeyey ay mooday in lagu sadaqaysanayo oo intay qaadatay ay maaragtay iyadii caruurteeda isticmaaleen adeegii ay cuneen oo adeegaasina ay ilaahay ka baryaysay arsaaqdaas inuu ilaahay ku arsaaqo meelayna wax ka filanahayn hooyo guri ku xidhan ilmo yarar ku la joogta cid iyo ciirsi toona haysan odaygeedii intuu safray xiriirkiisii ay weyday kadibna ay maxay hayday ka xishoonaysay inay shaaraca inta u baxdo ay dawarsato amba tuugsato oo masaajidada hortooda istaagto ay ka xishoonaysay waa wax cajiiba taasi waxayna tusaysaa fadliga ducada qofku ilaahay baa wax bixiya ilaahay baana wax maanica wala ilaahay waxa uu kaa maanic uu kaa joojiyay cid ku siin kartaa ma jirto
ilaahay waxa uu ku ogolaaday ee uu ku siinayana cid ka hor istaagi karta ma jirto. marka in ilaahay la baryo, ilaahay subxaanahu watacaala la baryo, ilaahay talada la saarto, ilaahay la isku xidho waa wax lagama maarmaan ah. waxa kale ee runtii sharaf mudan ninkii reerka adeegiisii markuu arkay amba loo sheegay in guri kale la geeyay aan ka daba tegin reerkiisii ku yidhi adeegaasi reerkaas qaatay ayaa ilaahay u soo diray arsaaqdaasi, inaguna intii in leeg baan ku adeegaya xaaskiisii ku yidhi. isaguna waa nin sharaf mudan oo deeqsi ah, allaha barakeeyo isagii ummadda islaamka ahba. runtii inaga dhammaantiin waxay inoo sheegaysaa, yani waa garan kartaan maaha arrin yar hooyo guri ilmo yar kula xidhan oo aan wax leel waxay siiso haysan oo wadan qurba ah joogta, odaygeedii ka safray oo telefoonkii xiriirkiisii maartay kala go-een oo aan telefoonkii ka qabanahayn. waxaa laga yaabaa Yemen dabcan waxaa jirta meelo buura ah, waxaa jirta meelo dagaal ka socda, duruufta ninkaasi ma ogin uu maartay reerkiisa xiriirkiisa uga go-ay inta uu safarka ku maqnaa. laakiin waa qiyaasan kartaan Allah subxaanahu watacaala, yani mar walba ilaahay subxaanahu watacaala xiriirka aad la yeelatid kuma qasaaraysid, arsaaqdana ilaahay baa bixiya. waxa weeyaan dhammaanteen muraadi ayaynu wada leenahay. qof walba oo nool muraad ayuu leeyahay, qof walba oo nool riyo ayuu jecel yahay inay u rumowdo, qof walba oo nool wax gaar ah inuu helo ayuu jecel yahay. dhammaanteena aakhiro iyo adduunyadaba milgadeeda iyo sharafteedaynu rabnaa, adduunyada nolol qurux badan, aakhirana jannada firdowsa ayaynu rabnaa. marka in aynu ilaahay uunba wax la weydiistay, ilaahay weydiisano khayrka adduunka iyo ka aakhiradaba. ilaahay haynugu sugo insha Allah, Allah inoo wada qadaro. walaalayaal intaynu ku kulmi doono barnaamijyo kale waxaan idinkaga tagay fi amaanillah, astawdactukum ilaahi alladhi laa tadhi'u wadaa'ihi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، وفي رواية وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة. قفك قرآنك كريم كأب أخرية إساقو قرآنك أخرس كيسا يحفظ كيسا كفي عن وحا ولقليا جندا ملائكته. الله سبحانه وتعالى قيمها سي أيوسي قفك قرآنك برته. haddaba fursadan ka faa'iidaysta oo ku soo dhawaada madrasad sawt alxaq litaxfiid alqur'aan alkariim. taleefon nambarka oo whatsapp ahna waxa ku arkaysaan shaashada.